kulantii waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa janalkeena xulashada ciyaaraha falanqayn ku aadan Arsenal oo si dhab ah markaasi hogaanka horyaalka England ee Premier League ula wareegay 4 dhibcood oo nadiif ah ku hogaaminayaan waqtigan iyaga oo guul dahabi ah ka gaaray kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Arteta waa tababare calankiisu u lulanayo waqtigan, iska ilow Mourinho, iska ilow mid kale, iska ilow Guardiola iyo Klopp, xitaa Ten Hag madax xiran iska ilow. Arteta ayaa maskaxdiisu ay shaqaysay kulankan weyn isaga oo Conte oo saaxadda kubadda cagta kaga soo horeeyay kaga awood badiyay tacticadii galabta. Arsenal sideedaba guush ay rabto markay soo gashaba baaskii dhac baartay u saarneed, Shaqe u saarneed, Martinelli, Saka, Jesus waaba wax kale. isagu markuu kubadda qabsado waa ku jeesanaya ciyaartooyda toos uu aadaya ciyaartooyda wuxuu leeyahay adinka meesha joogtiin aan barabaa Bruno inaan ku dheelo. Marka Arsenal kulanay guul u baahneed u ahaa hadii ay tahay markii kugu horeysay bal janalka xulashada ciyaaraha subscribe noo saar gambalelka from muuqaaladeena share like u sii saaxiibada kale ee jecel ciyaaraha si inoogu soo biraan. aad baad u mahadsantiin. guul weyn ay Arsenal gaartay horyaalka Ingiriiska ee Premier League kadib markii ay qaabileen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Tottenham Hotspur kaarnacasnimo oo ninka lagu magacaabo Emerson Palmieri uu ku qaatay Martinelli ayaana ciyaarta farqiga weyn abuurtay iyadoo Arsenal elba hogaanka yeesay ayuu kaarnacasnimo qaatay nin gooshiisa u dhaweyn oo kubadii haysta ayuu gadaal ka raacay taasi oo keentay foulka marka la qiimeeyo waxa la yiri waa red card sababtoo ah awoodda iyo takalka anqawgu ka garaacay marka lama ogolo in ciyaartooyda anqawga si toos looga garaaco. Shaqo wuxuu ahaa galab isaga oo dhan uu ahaa mid jakatoora ah, weerarku ku jiray, dhaxdu ku jiray, garbuhu joogay, taageerayaashu madadaalinay, waa dhaliyay, waa qoslay, wax walba sameeyay. Arsenal shanaan arkayno horyaalkan inta la qaado oo calanka Arsenal lagu daboolo xagga maal iska dhigo sababta hadda Arsenal horyaalkan cid ka xigta malan Liverpool aan aragna si u jaban tahay, Manchester City-na iyadaaba hadda kulan weyn oo derbi ciyaari doonta. Arsenal laakiin waxaa ka go'an natiijo, waxaa ka go'an ciyaar, waxaa ka go'an xisaabtan. hadda kulankii 8aad ay ciyaartay, kulankii toddobaad waxay badisay kulankeedii 6aad oo xiriira, yani kulankeedii 7aad oo xiriir ay badisay. marka 22 dhibcood ay leedahay waa waxa kooxaha kale ay kaga duwan tahay. horyaalkan Ingiriiska ee Premier League Arsenal 7 kulan ay badisay, midna waa laga badiyay, 8 kulan kaliya iyada dhan ciyaartay, waliba kulanka laga badiyay iyada fiicneed oo weerar ka waday oo gadaal damba counter attack looga badiyay. Arteta haddana arkayno calankiisa lulanaya wixii uu ka soo bartay Guardiola wax ku darsaday isagaana markaasi daadiinaya haatan tababarayaasha horyaalka Ingiriiska ee Premier League. wuxuu ku soo shirtagay shaxdiisii bilowga ahayd ee horyaalkan hogaanku ka caawisay. Ramsdale oo ninka la yiraahdo Sishenka soo laabtay, Gabriel oo difaaca ah, William Saliba difaaca Arsenal aqli uu ku soo kordhiyay ee aqli la'aan ay ciyaari jireen. hadda wali ma aragtaan Gabriel wali aqli la'aan uu ciyaara, waa nin isagoo dhan iska fakiraya, aqalkiisu uusan joogin, rigoor uu keenay, xisaabtan badan ma jiro, daafacashadiisu marar qaar kuwa 50-50. laakiin William Saliba difaaca Arsenal xisaabtan uu ku soo kordhiyay, wuxuu ka dhigay Arsenal dhan koox xisaabtamaysa, difaaca ku xisaabtamaysa, aqli leh, madaxa ka soconaysa. ninka la aada Bruno lama aaday marar qaar jidka laga daboolaa, bis haddana waa nin weyn oo xoog leh, sidaas uu istaaga jidka waa xiran yahay, meel la maray ma jirtaba. qadka dhaxana waxaa yimid Thomas Partey oo dhaawac looga shakisanaa. Shaqo wax kale oo haba iska daa oo digaadna isagu wax kale uu noqday galabkan. Martinelli iyo Bukayo Saka haba sheegin, iyadoo Gabriel Jesusna uu kulankan saameyn gaar ah ku yeeshay. Arsenal sidaas ay u ciyaartay waliba markii 3 gool iyo gool ciyaartu ay noqotay oo daqiiqado fiican ay ka dhinaa ciyaartu. wuxuu yiri Arteta maxaan ciyaartooydeeda dhaawaca shakiga ku jira isaga dhibaya, fiiri macallin inuu yahay. Shaqo waxa la yiri Sinchenko ii soo bax, waxa la yiri Thomas Partey ii soo bax, waxa la yiri Odegaard ii soo bax, Jesus ii soo bax oo ku dhiganaya afartiisi ciyaartooy ugu muhiimsan oo garoonka ka saartay, waxaana uu keenay bedelkooda. marka tababaraha markasta uu xisaabtamaya, jamaahiirtu waxay dhahayeen 3 iyo 1 ciyaarta maray, 3 iyo 1 ay ku celinayeen maanta oo gacmaha marka kaamiradu ay qabato. guushan Arsenal ay gaartana waxay ahayd mid ay u qalantay galabkan, inkastoo 10 ciyaartooy ay ku dhameysteen kooxda Tottenham Hotspur markii Emerson Palmieri kaarka casaanka looga taagay. waxaa goolka hore Arsenal u dhaliyay Thomas Partey, ninka lagu magacaabo Partey gool u dhaliyay kubad sidaas cag u qaloocan oo sis uu soo duubay ayuu gool hayaa
dhanka ellaha midig uu ka siiyey kubadda way jarneed sas u soo jiray waxaa taagay ciyaartooyga la yiraahdo Ben White maba ka fiirsan goolahayuu akhriyay inuu dhaxbartamaha joogo oo 50-50 ay tahay kubaddan dhinac u boodi karaba waa u duwa dhanka midig u dhigay shabaqaduuna gool qurux badan ku hubsaday iyadoo sidaas ay tahay ayaa Arsenal difaaciida Gabriel Rigoro uu ku keenay ninka la yiraahdo Harry Kane rigoorada qaatay Harry Kane Arsenal waa iska saarayaan baryaharo Arsenal ba looma sheegan ninkan gool Arsenal goosha Arsenal looma sheego waa uu dhaliyay rigoradiisi qurux badan waliba ciyaartana wuxuu sidaas kaga dhigay in ay noqotaa gool iyo gool qaybta hore sidaas lagu kala nastay ciyaarta oo sidaasi ah oo qaybta labaad la soo laabtay oo kulanku uu yahay derbi koox kastaana xisaabtan fiican ay wadaa ayaa waxa markaas yimid goolkii labaad ee kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana dhaliyay ciyaartooyga Gabriel Jesus oo markaas ka faa'iideystay qalad uu sameeyay goolahayaha kooxda Tottenham Hugo Lloris waxaanu ku dhaliyay sidaas goolkiisii labaad ciyaarta Arsenal ay ka dhalisay kiisii ugu horeeyay galabkan waxaana ciyaartooyga noqotay 2 gool iyo gool sidaas ciyaarto iyadoo ah Emerson Palmieri baxay oo Rose ku qaatay ciyaartooyga lagu magacaabo Martinelli waxaan ciyaartu ay noqdeen 10 ciyaartooy Tottenham kadib sidaas markay wax noqdeen ayaa Arsenal goolkeedii saddexaad ay dhalisay Martinelli waa xariif kubadda waa madadaaliyay ciyaartooyda difaaca shaakan horay inta ka dafo yiri hoo bariiska shabaqada saddex yaal ciyaartu sidaas ku noqotay oo kooxda kubadda cagta Arsenal gool ay ku qaateen iyadoo oo waliba Gunners guushaan حركة كوبادا كاجد درنادي عيارين ريكورد ugu muhiimsan ee ciyaarta ka soo baxday iyo qaab ahaan kulankan Harry Kane tusaale ahaan 18 kulan oo uu ka hortagay kooxda kubadda cagta Arsenal waxay noqonaysaa kooxda goolasha ugu badan uu ka dhaliyay 14 gool uu ka dhaliyay 18 kulan uu ka hortagay waa koox uu ka adag yahay marka ninkan lagu magacaabo Harry Kane kooxda kubadda cagta Arsenal lamaba tusaba shabakada Arsenal waana 14 gool 18 ciyaarood waa wax aad u fiican runtii kooxda ugu badan ee gool uu ka dhaliyay horyaalka England ee Premier League ay noqonaysaa Antonio Conte ayaana sameeyay 4 bedel hal mar waa wax waaliye rikoorada ciyaarta ay kamid ahayd 4 bedel uu hal mar sameeyay oo ciyaarta hal mar uu wada keenay rikoorada Premier League waxyaabo laga diiwaan galiyayna runtii qayb ka noqonaysa waana isku dhaxyaaca iyo waalida markasta tababarayaasha ay ku dhacaan marka kulamada kooxdooda gool laga dhaliya sidaas ay ciyaartu rikoorada ay noqdeen Arsenal haatan hogaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League 22 dhibcood ku haysa iyadoo 4 dhibcood ka sareysa kooxda Manchester City oo ku soo xigta laakiin Manchester City kulankeeda goor dhaw ay ciyaari doonta ciyaaraha kale xiisaha badan ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League goor dhaw soo gali doona waxa kamid ah Crystal Palace iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea lagu magacaabo kulankooda ayaa si gaar ah isha loogu wada hayaa oo labada sugaya Graham Potter ayaana ciyaartiisii ugu horeysay ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League isagu ciyaari doona waxaana kulankan kooxda Chelsea oo Aubameyang Havertz iyo Raheem Sterling ay ku soo wada bilowdeen weerarkeeda qadka dhaxana Mason Mount iyo Gino iyo Mateo Kovacic ayuu ku soo bilowday Slave Fofana iyo Thiago Silva ayaa weerarka dhex jooga Rice James iyo Ben Chilwellna qaybta dambe ee difaacyada ciyaarayaan keebaan ku soo bilowday goosha tan waxay ka dhigan tahay marka in bacteria la nacayo haatan kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay bilowday inay ciyaarto sideedii caadiga ahaa lagu yaqiin ciyaarahaas iyo waxyaabaha kale natiijooyinka soo baxana muuqaaladeena kale ciyaaraan ku soo gudbin doona hadii aad idmo guud ahaan saaxiibayaal muuqaalkan falanqaynta ah ayaan inta isku soo gabagabeynaya bal waxa iga dheh Arsenal horyaalka sanadkan ma loogu aamin qabaa mise waa naga waalaysaa meel dhexe fariisan doonta fikirka qaybta commentiga noogu soo xariiq nabadgelyo